waxaa soo baxday dhalinyar yar oo meelaha ilaha dhaqaalaha jooga oo maalin kasta isugu faanaya hantida ay leeyihiin rajiimkii hore waxaan ka qayli jirnay dhalinyar yar oo security ku jira oo dabaqyo waaweyn dhistay oo hanti tabcaday maanta waxaa soo baxay kuwa ilaha dhaqaalaha jooga oo isugu faanaya hantidii qaranka meeqa guriga xamarku leedahay meeqa dhismaa kaaga dhisan Nairobi meeqa Istanbul ka iibsatay dhalinyaradii waxay noqdeen kuwa isugu faanaya hantidii qaranka ee la boobay waxaad ogaataan dawladda Kenya maalin waxay soo saartay hay'adda la yiraahdo qiimeynta halista qaranka Cabdiraxmaan Cabdishakuurow barnaamijka ay dawladdan Xasan Sheekh ku shaqeysay wiligaa waa ogeetad wax kugu cusub ma aha laakiin reer xamar waxay tiraahdaa feestadan waa filaay fijirkiyay igu faa'iido macna siyaasadda inaan sharaxo waa liiga fiican yahay laakiin waxaan rabaa qisadoo yar inaan idinkaga sheekeeyo dadka aan ifiirso hooyan warka u wadaa macna hadda ka hor waxaa dhacday meelaha madxafka ee qaranka ee maxaa la jir taariikhda la dhigo dalxiisyaal fara badan ay imaadaan si ay wax ugu ogaadaan ama wax ugu duubtaan dadka dalxiisyada taariikhda dalka ka jiro nin masaakiin tuugsada ayaa waxaa fadhiyay marka madxafka hortiis wuxuu yiri ninkan ajnabiga cadaanka ah ayuu tuugsaday wuxuu yiri lillaah cadaankii waxa sir wad ninkan wuxuu leeyahay lillaah cadaankii wuxuu leeyahay wad kadib kaamiradiisa uu soo baxsaday ninkii tuugsaday sabirow ka qaatay waa iska baxay wadankiisa ku laabtay kadib wuxuu raadiyay ninkii tuugsahay nin afyaqaana warkuu dhahay nin caraw weydii wuxuu yiri yaa wadankaasaan jiray nina ilbaabka madxafka fadhiyay wuxuu yiri lillaah macnaheedu maxay tahay markaas uu yiri waa ku tuugsanayo sadaqow rabay wuxuu nafsadu ku cishto raba gaaja haysi ninkii nin xoolo ilaahay siiyo lacag haastay uu ahaa markaas wuxuu la soo xiriiray safaaradiisa ee dalkaas ku taalay lacag mablaq oo muxtaram ah ayuu u soo diray iyo ninka sabirkiisa ninka masaakiinka meesha fadhiyay in la siiyo lacagtii mudiirka safaaradda ay soo gaartay markuu arkay mablaqan faraha badan wuxuu yiri nin maskiin oo tuugsado lacagtaan ma istaahila macna 40 kun ay ahayd 20 asreebti 20 wuxuu u soo diray mudiir maxaa lahaa duqa magaalada oo soo diray iyo sabirkii ninka tuugsay wuxuu yiri ninkaas lacagtaan iskale duqa magaalada waa fiiriyay waxa siri nin masaakiin le iska tuugsado $20,000 in la siimo istaahilo 10 reebti 10 waxa uu soo diray maxaa la dhigi jiray taliyaha booliska ama manashibiyaha ama belediyada oo soo diray wuxuu yiri sabirkan waxa ninkaas masaakiinka la siiyo taliyihii waa fiiri sabirkii lacag 10,000 nin tuugsay ma istaahilo yiri markaas uu saldhigu ugu soo dhow u diri daabidka joogs u diri wuxuu yiri sabirkan hadaa aragtay ninkan lacagtaan hala siiyo 5,000 way taliyihii waa fiiri wuxuu yiri nin masaakiin tuugsay ma 5,000 qaada anoo daabid inta joog wax ma qaadahay miya markaas uu diblihiis u yiri wuxuu yiri labadan boqol ninkaas masaakiinta u geey oo meeshaas fadhiyo sabirkiisa waaki diblihii waa soo baxay waxaas u yimid ninkii masaakiinkii oo madxafkii hortiis fadhiyo tuugsooy markaas uu sabirkaan ma taqaanaa uu yiri haa uu yiri aniga waay ninkaas iyo ninkaas oo maalintii lilaahi aadhees ku sawiray ma xasuustaa uu yiri haa waa xasuustaa wuxuu ku soo dhahay uu yiri ala kariim lawdiis boqol oo jeebka gashtay 40 kun ugu dambeyn 200 waxay soo gaartay diblihii ninkii masaakiinka $1 ma keelin macna markaas waxa la yiri uslilaahi sadaqor yiri ma ogtahay ii kaalmee way macna waxas ku soo dhahay yiri jawaabtii markaas uu sugay amaanta la siiyay waxa la yiri ala kariim isku soo dhahay marka wax badan dhacdo lacagta shacabka ay leeyihiin ama kharmada madoowa soo dhiibto ama hay'adaha soo dhiibaan saasay u soo martaa xukuumaddu soo dhax gashaa saasana loo qaybsadaa inay marka dadkan xukuumadda ku dhex jira maanta dhalinyarada ay lacag iskugu faanaan dakhliga soo galay ay iskugu faanaan waxa sababay waxa way musuqmaasuqa iyo corruptionka dalka ka jira way nin walba Soomaali waxa u yimaadaa in macnaha ganacsi as sameeyo lacag as sameeyo
ma u yimaada siyaasadda dadka inuu ugu shaqeeyo ee asagaa ku shaqaysto marka wasiirkeeni cabdiraxmaan cabdishakuur inaa maanta soo fadhiisatid warkaan inta la imaadid wallaahi ma kuugu qurux badneen maalintii madaxweyne noqotid allah ku gaarsiiyo maalintaas dalkaan wixii ka qabahaysaan arkaynaa waa idin salaam